allaha u naxariistee waxaa maanta aas qaran loogu sameeyey magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal gaashaanle dhexe mustafa xasan caafi oo ka tirsanaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan. aaska marxuumka ayaa waxaa kasoo qayb galay saraakiisha ciidamada asluubta ee gobolka awdal iyo dadweyne aad u fara badan. ugu horeyn waxaa ka tacsiyeyey geerida marxuumka saraakiisha ciidamada asluubta ee gobolka awdal. halkan maanta waxaan ku aasaynaa marxuum mustafa xasan caafi ilaahay jannadii firdawsa ka waraabiyo, eheladii iyo qaraabadii iyo dhammaan ciidanka asluubta uu ka tirsanaa. wuxuu gaashaanle dhexe ka tirsan ciidanka asluubta jamhuuriyadda somalilan. waxaan leeyahay ciidanka asluubta, eheladii iyo dhammaan dadweynaha reer boorama waxaa nin samatalisa, nin nabadda jecel, nin in badan ka soo taliya samaha. ilaahay waxaan leenahay jannadii firdawsa ka waraabiyo. waxaan uga tacsiyeynaynaa korneel mustafa xasan caafi. korneel oo keliya ma ahayn oday beeleed, caaqil, wax walba uu magaranaysaa uu mateli jiray uu ahaa, samatalis buu ahaa. magaranaysaa waa rukun aad ayaa naga baxay. markaas sidaa awgeed ciidanka asluubta iyo shacabka iyo eheladii dhammaan uu ka tegayba samir iyo iimaan baan leenahay. dhankooda iyaguna waxaa ka tacsiyeyey mas-uuliyiin qaar ka tirsan warbaahinta gobolka awdal, waxayna looga baryeen inuu ka waraabiyo jannatul firdawsa. waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: waxaan halkan tacsi uga dirayaa mustafa xasan caafi oo halkan maanta ku geeriyooday xalay magaalada boorama, ehelkiisii iyo dhammaan wixii ciidan ahaa, weliba gaar ahaan asluubta ahaa ee uu ka baxay maanta. runtii mustafa nin aad u weyn buu ahaa oo aqoon badan leh, buugag badan buu qoray, nin aqoon-yahana buu ahaa. maantase tiisii baa timiday. waxaan ilaahay uga baryayaa in jannadiisii firdawsa uu ku casuumo. rajicuun kulla nafsin daa'iqatilmowt. waxaan tacsi tiiraanyala u dirayaa dhammaan qoyska reer xasan caafi, gaar ahaan saaxiibkay abubakar xasan caafi. waxaan leeyahay geerida ku timid marxuum mustafa xasan caafi dhammaantiin samir iyo iibaan allah naga wada siiyo. kulley geeri naxdin lahayd, laakiin haddana waa la kala horeeyaane waxaan ilaahay uga baryanaa inuu jannadii ka waraabiyo. kulley wuxuu ahaa nin aad uga shaqeeya isku soo dhoweynta, isku haynta dadka, nabadaynta. ciidankii uu la shaqaynayeyna iyagana waan ka tacsiyeynayaa maadaama nin ka mida uu ahaa ehelkaa. waa inaa ilaahay raajicuun, inaa lilaahi waa inaa ilaahi raajicuun. horta xaqi ilaahay baa dhacay. badan baanu jaarahayn oo ilaa dhowr iyo 20 sanaba ka badan. nin wanaagsan buu ahaa, nin aad u wanaagsan buu ahaa, jaarka ku fiican maxaan ku dhahaa jaarnimada aad ugu fiican. waxaan leeyahay eheladiina samir iyo iimaan allah ka siiyo, isagana naxariistii janna allah ka waraabiyo. inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun. ilaahay u naxariisto marxuum mustafa xasan caafi. mustafa xasan caafi runtii wuxuu ahaa nin aad u qaali ah. wuxuu ahaa nin ciidamada somalilan ee kala duwan, xilal badan oo kala duwan ka soo qabtay. wuxuu ahaa nin xil kastoo uu qabto taf ku ah. kama dambaystii ciidamada ka soko wuxuu noqday mustafa nin dhaqanka buu ka mid noqday. sakariya saxane, wararka warbaahinta SBC, magaalada Boorama.